ولا ليال وعلى سعوتين إن dadkii Soomaaliyeed ay hadleen oo odayaashii ay hadleen oo ay shir qabteen oo dhalinyaradii ay hadleen oo haweenkii ay hadleen oo culimadii ay hadleen oo musharaxiintii ay hadleen oo dowlad goboleedyadii ay hadleen oo beeshii caalamka isla jirtay ay hadashay oo urur goboleedka igada ugu dambeeyay oo hadlay dhammaan waxay isku raacsanaayeen doorashada dhexda hal la dhigo maamulkeedana laga heshiiyo حلنا ديدن نكا ديدن ومحمد عبد الله فرماجو صومالي وحيتنا واحد في وريا والا ايضا اكته باقي لغا سو ساري ايغد ايضا اكته باش عالم كشن 8 ديسمبر والملتزم سو سارتي ayadoo ogtii inuu cawada aan hadlayna madaxweynihii Puntland oo kaalkacyo u yimid inuu la shiro madaxweynaha galmudug ka bacdina ay ka shaqeeyaan in la isugu yimaado waan lagu xalinayo khilaafka taagan ayuu madaxweynaha cawada wuxuu soo saaray jadwalkii doorashada macnaheedu waxa waaye qof aan u aabiyeelayo iyo cid aan dhageysanayo ma jirto jadwalka doorashada waxa ku qoran waxaan ka rabnaa madaxweynayaasha maamul goboleedyada inay doorashada xilligaas qabtaan saas yeelaan wiilal dhalinyaro hoteelka ku shirsanaa soo saaray waxaa saaxiibka Musa Bixilo ku raacsanahay yaa waaye madaxweynayaasha goboleedyada leeyahay doorashada qabta Saciid Cabdullaahi Daniya Maxamed Madooba waa madaxweynaha galmudug iyo madaxweynaha Hirshabeelle iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo doorashada walaalaha Soomaaliland oo rabo anagoo taagan in Muqdisho lagu dhaco farmaajo marka isku soo duuduubo wuxuu ku tashanayaa waa intaas dhimale wuxuu yiri Puntland iyo Jubbaland shaqo kumadii waa ka soconaa hadda Soomaali waa 4.5 doorashada iyo ka qayb gali haddana Puntland iyo Jubbaland hayeen doorashada hanoo daayo مثلا انت انك انك شريف حسن اكو ترتبينه مدحوين قرقور هي مدحوين لفت قرين هي مدحوين علي قول له waxaa ka rabnaa doorasho dalka laga wada qabto oo loo sameeyay inay qayb ka noqdaan hadduu madaxweyne farmaajo diido annaga ku tartamayna shariif xasan han dhaafan taasaan ka leeyahay madaxweynaha wuxuuna leeyahay horta waxaa ogaatiin madaxweyne farmaajo soo u yimid dadkii ugu badnaaya magaaladan ka dhintay 1000 qofooda isku maalin meel ku dhimatay maalin kalena 200 isku meel ku dhimatay oo ogtiin oo ex control iyo qarax ay ku dhinteen soobe waa markii ugu horeysay dad siyaasiyiin guryahooda lagu weeraro وأنك سميه مدحونياش هر فديا إنه ديار الهذي وأنك أختهين أو مواطن في قلب دق حبيبي وأنك أختهين أو يري دور شك الساعة أنك أنقذنا أيو وأنا تدخل إنسان دور شاء قصو تدخل من ما جروا سجنه وأنك يري عشورة أقوبان تدخل كوكردي مقدسة جول والله ما عشورة لا يقاضى تي شبابك يتيسي انت اسود المحل لو سفراهي مدة إلى هذا أفرسن وعد ماتي وإن سيكر جوغا لا إسكيالي ما يو سورة قلنا ما صور عدماها فحلك دارك لما هو يري ديكتاترنا مرة منه دقال سكاينا مرة منه لما لا سدحنا ولا تاقنها نقا مدحونا فرماجي انت اسكبنا الظلمي لوغو دلقادا مايو وإنها دقيه نفرتين هدو يرادي دلكا بربرايا ما بربرايو صوبتنا ويني شيغا
iskoolada jaamacadaha telecommunication bangiyada biyaha korontada dowladda ma ka dhiibto oo shacabka iskama leh dowladdan tartankeeda ku jirno asagana madaxweynaha ka yahay afar meelay deganta madaxtooyada garoonka diyaaradaha dekadda iyo baarlamaanka deganta afartana amisom waardiis horta wax asiiha qabinina wala burbura horta yaa leeyihiin wax burburaya male asagaa si tartiib isaga siibayna hadduu talada dalka diido wixii niina waa haysatay dagaalka sokeeye markuu dhacay 9-kii aniga waxaa ka soo baxay dugsi sare 2 sano military la geliyay oo la yiri jaamacad arki maysi ilaa military gasho waa soo galay imtixaankii jaamacadda xamara u imid waa fariisay waa waayay magaalada iska joogay dalka waxa dunyaha inii sheega wax kasta dawladda leh wax kasta dawladda leh maanta wax kasta waxaana dadka iska leh madaxweyne farmaajo waxa dhibayso dadka inay wax leeyihiin dhibayso inuu ka dumiyo rabaa mana ka yeelayno idinka maxay ka rabnaa banaan baxa nabadda inaa u soo baxdiin oo odan cabsanina diyaar ma tihiin annaga aynu horkaceen inka dabaymen maalintaan ilaahna soo baxa waa inaa soo baxdiin oo si nabad aan isku dhaafino madaxweyne farmaajo daraada eed guryaheena u hareereeyay waa kuwaana musharaxiintii hore fadhiyaan qof tilaabo qaado ma leh daandaansi uu rabaa madaxweyne farmaajo saraakiisha guryahooda u dhacu hayaa habeen saqdhaxu u dhacaa war ninkan dadkii aafi iyo colaadu ka abuuray madaxweyne farmaajo wuxuu rabaa inii sheega oo inteena nagula dagaalsan yahay dagaalka geda ani maxaa laygu hiili waay war dagaalka gedo adiga walaalaha isku haysteen madaxweynaha tahay dhexdhexaadi korneel cabbaas maxamed sayid aadan madaxweyne ku-xigeenka jubbaland cabdirasiid janan iyo kaliil oo guddoomiyaha gobolka gadaa madaxweynaha walaalihiis waaye macallimow iyo wiilkii nabasuud jooga magaciisa ii sheeg kulane iyo asagana waa dhinac waa hal beelo is haysata oo annaga maxaan dhexgeliyey dibashiin basaan ku dhexgeli karnaa inteenaan waxaan diyaar u nahay inaan tolka ishayso aan heshiino laakiin waxaa ka soo hor jeednaa ciidan xamar diyaarad looga qaada oo jidka mari karin oo jidka maxay u mari karin al-shabaabaa ku jiro gadaa dagaal laga ridayo jidkana shabaabaa ku jira war horta aan jidka horayno oo tolka madaxweynaha hadduu asaga ku fashilmay inuu heshiisiiyo annagaa diyaar u ahayd madaxweynaha waa la heshiisiinaynaa tolkiis waxay ishaayaan waa tolkiis isma haayaan cid kale dad kalena isma haayaan dadkaana in la siro waa soo dhaafeen waa lays yaqaanaa soomaali waa isgaranaysaa qof been u sheegi karaa ma jiro waxaan rabnaa marka waxa laabaya ma lehe u diyaargarooba inaan si nabada isaga dulqaadno hadduu ina farmaajo diido doorasho dhexda taalla in la qabto u diyaargarooba annagaana diyaar u ah waana inku hormooda inkugu nahay waana inku horkacaynaa si nabadaana keligii isku dhaafinaynaa sida wiilka dhallinyarada sheegay asagoo socdow yimid asagoo socdaan iska diraynaa inteena kalena si nabadaan ku joogaynaa waxaad ka cabsasiiyey jirin waa mahadsantihin wasalaamu calaykum